waxay la tahay hadal inta la dhiilaa waa la yiri waxaa meesha ku jirta in dumarkana ay kaalintooda qaataan maadaama arrinta loo golo fadhiyo ay tahay arrin aad iyo aad u weyn haweenka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ahna maalin runtii taariikh ummaddu ay sugaysay oo maalin aan ku fikirayna ama aan ku riyoonayna inay timaado maalin maalmaha ka mid ah inkastoo hore loo sameeyay haddana dib u heshiisiin dhab ah oo la darso qaabka iyo sida ugu habboon oo Soomaalida ay ku heshiin karto waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xukuumadda dalka gaar ahaan madaxda wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo federaalka oo muujisay xilkasnimo iyo dadaal dheeraad ah iyaga oo gudanaya waajibaadka loo idmaday in ay si dardar leh iyagoo ka jawaabaya baahida shacbiga Soomaaliyeed ay noo bandhigaan in la daraasadeeyo ama laga wada tashado qaabkii dib u heshiisiinta waxaan rabaa labo daraasadood inaan tusaale ahaan u soo qaato oo ay sameeyeen aqoon-yahanada Soomaaliyeed lana xiriirta doorka gabdhaha Soomaaliyeed mid wuxuu ku saabsan yahay markii dhibaato dhacdo oo dagaal iyo loo qalab qaato in la islaayo oo laba walaalo ah oo wiil iyo gabar ay wada fadhiyaan wiilku dambaba wuxuu ka fikiraa kaalinta uu ka qaadan lahaa habkii uu la tegi lahaa iyo sidii goobta uga muuqan lahaa oo dad badan u leeyahay lahaa gabadhu waxay ka fikirtaa dhibaatada soo fool leh geerida imanaysa dhaawaca sidii loo daaweyn lahaa agoonta laga tegay sidii loo xanaaneyn lahaa iyo sidii dib u dejin loogu samayn lahaa dadkaas dhibaatadu soo food saarta waa laba maskaxood oo walaalo ah laakiin subxaanahu wa tacaala ilaaha ayaa saa u kala maaragtay abuuristooda saa kala ah ama qariisadooda bani aadamnimo ayaa saa kala ah midda kale waa daraasad iga yaabisay oo aan kula kulmay wasaaradda arrimaha gudaha dhexdeeda oo ay maaragtay aqoon-yahano Soomaaliyeed diyaariyeen oo gabdhaha Soomaaliyeed doorka ay uga jiraan mujtamaca Soomaaliyeed oo gabadhii loo sameeyay 20 gacmood oo gacan ay ku hayso ninkeedii ay ku xanaanaynayso gacanna ay ku hayso ilmihii gacanna ay beerta ku falayso gacanna ay ku ganacsanayso gacanna ay ku badbaadinayso gacanna ay boogta ku dhayayso gacanna ay ku quudinayso ma tilmaami karo waxaas oo dhan waxay ka turjumayaan kaalinta iyo doorka ay gabdhaha Soomaaliyeed uga jiraan mujtamaca waxaan rabaa marka dib ugu noqon maayo taariikhii dheeraa ee gobonimada ay ka soo qaateen ku noqon maayo tii ay dalka iyo dadka ku badbaadiyeen hadda waxaan soo gaarnay xilli aan mahad celino oo marka ugu horeysa Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan mahad celino marka labaad aan mahad celino raggeena qiimaha badan ee sharafta badan ee gartay gabdhaheena qiimaha ay leeyihiin naguna gacan siiyey in maanta baarlamaanka labada aqalba ay fadhiyaan 81 gabdhood oo u taagan inay dalka iyo dadka daafacaan oo u shaqeeyaan waxa kaloo mahad leh duqa magaalada gudoomiyaha gobolka Banaadir oo taariikhda markii ugu horeysay guddiga gobolka Banaadir ku soo daray gabdho isla markaana ilaa 5 degmo u magacaabay xogeyaal degmo gabdhaha Soomaaliyeed gudoomiyaal degmo magacaabay arrimahaas iyo kuwa kale aan sugayno oo in ay ka qayb galaan daadejinta maamulka ilaa meesha ugu hooseysa sidoo kale xukuumadda wasiirada aan ku leenahay ee adag ee lixda iyo labada wasiir ku xigeen iyo guud ahaan diyaargarowga gabdhaha Soomaaliyeed ay ku jiraan waxay muujinaysaa maanta Soomaaliya gobasheeda iyo dib u heshiisiinteeda inay marti u tahay sidii dhaqaale loogu heli lahaa sidii ummadda nabad looga dhexdhalin lahaa sidii loogu boogadhayi lahaa sidii ay ummadda Soomaaliyeed wanaageedii iyo sharafkeedii iyo wada noolaanshadeedii iyo qarannimadeedii u soo ceshan lahayd inay gabdhaha Soomaaliyeed maanta gobashaas ay dhigayaan diyaarna ay yihiin inay hoggaanka hore iyo talada hore ay ka qaataan waxaan ku kalsoonahay uguna baaqaya gabdhaheena ama ha joogeen dalka gudihiisa ama dibaddiisa ha joogeen maadaama haweenku ay dusha u dhigteen
dhibkii badnaa ee shacbiga Soomaaliyeed ku dhacay maanta waxay maraysaa marxaladdii aan ku kalanaynay waxay maraysaa marxaladdii dadkeenu ay ku midoobi lahaayeen waxay maraysaa marxaladdii loogu gurman lahaa gabadha umulaysa ee ku dhalaysa meesha aan isbitaalka lahayn ee iyadoo laga yaabo in la soo wado iyadoo cunugeeda isku dhimanayeen sidii loogu gudbi lahaa taladeedii sidii lagu midoobi lahaa taladeedii sidii Soomaali isugu tashan lahayd taladeedii saan horumar u gaari lahayn taladeedii saan ceebta uga mayran lahayn taladeedii ayaa maanta la taagan yahay sidaa darteed gabdhaha Soomaaliyeed dadaalkii iyo wadaniyadii iyo kalsoonidii iyo horumarka ay la jeclaayeen dalkooda inay safka hore ka galaan diyaarna u noqdaan in qaabka dib u heshiisiinta ugu quman ee Soomaaliya ay istaahisho oo maanta u baahan hoggaanka loo dhifto inay gabdhaha ka timaado horseedna ay ka noqdaan una taagnaayaan habeen iyo maalin Soomaaliya ha guulaysato Soomaaliya ha midowdo dib u heshiisiintuna waa ruux siduu sheegay ugaaska waxay ku soo aaday xilligii iyo goortii iyo saacaddii la rabay in laga munaaqashoodo oo Soomaali maanta ay diyaar u tahay gabdhuhuna horseeday ka yihiin waana soo dhaweynaynaa waana ka shaqaynaynaa aad iyo aad u mahadsan tahay